بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta oo ay taariikhdu tahay bishii 25 waxaan joogaa magaalada Sagag. masjid jaamici ayaan ku dhex jiraa. masaajidkii dhismuhu ku socday, qaybtii hoose oo dhammaatay. masaajid aad iyo aad u weyn weeyaan, masaajid aad iyo aad u qurux badan weeye. ilaahay subxaanahu watacaala ha ka ajri siiyo dadkii soo abaabulay, dadkii ka qayb qaatay dhinac kastaba. masaajid aad u weyn weeye, masaajid tayala weeye. ilaahay subxaanahu watacaala fii miisaani xasanaatihi ugu daro dadkii ka shaqeeyey. maanta wuu dhammaaday. waa dad muxsiniina oo badan baa ka qayb qaatay, dad muxsiniin oo far badan baa ka geystay contribution iyo sadaqo ka geystay. inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billahi walyowmi alaakhir. kolley maraafiqdiisii way dhiman yihiin, oo musqulihii iyo wixii oo dhan way u dhiman yihiin. oo dee masaajidku hadduuna musqulo lahayn waxaa weeyaan, iyo meel lagu weysaysto waa dhibkeeda iska leedahay. waxaasoo dhan hadda wuu dhiman yahay. halkaa hortayda ka muuqata waa qolka meydka lagu dhaqo, oo meydka weeye. halkani waxaa weeyaan idin muuqata, waxaa weeyaan waa mixraabkii. mixraab aad u weyn oo qurux badan buu leeyahay. marka waa insha allahu, marka waxaa weeye waa masaajid sharaf badan ay ka muuqato. maasha allah ninka halkaan xeraa qur-aanku akhrisanaya. maasha allah. qaybtaasi waxaa weeyaan waa qayb adugu barandi iyo qolal kale iyo weeyaan. marka taas waxaasina waa gogol hadda u taalo weeye, oo qaybta hadda baa la dhigi doonaa insha allahu. marka kaas shaqo badan buu laakiin oo banaanka abaa jirta. dabaq haddii laga dhigayo iisadana taasina waa diyaarsan tahay, oo dabaqaas wuu u diyaarsan yahay. laakiin waxa hadda u daran waa maraafiqdii iyo musqulihii iyo waxaas weeyaan. waad mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.